السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن هو set هي برودكشن فضلا ka mid noqon macaamiisha ku taxanaya ka barata barashada cilmiga kombiyuutarka xogaha muhiimka ah arrimaha bulshada iyo sidoo kale ku dhaqanka diinta islaamka iyo horumarinta qoyska. casharkeenan ayaan u guda galaynaa oo noqonaya casharkii waxayna ku soo qaadan doonaa waa maxay faa'iidada marka aad QuickBook lacag qof ka jirtid ama iib samaysid loo update garanayo. qaybta financialka ay tagaysaa waa qodobka koobaad. update kasta financial QuickBook qaybtiisaas ayuu la shaqeynaya. haddaba nin ayaynu lacag ka jarnay oo magaciisa la yiraahdo meheradiisa gaadhaye marka sidan kliko siino gaadhayo maxaan kugu leenahay waxaan ku leenahay 101 xagga point of sale-ka laakiin QuickBook way ka duwan tahay sidaasi. QuickBook haddaynu tagno waxaynu QuickBook ku leenahay lacag dhan 201.5 marka boqolkaas ayaana soo upload gareyn. haddaba boqolkaas update marka ku samayso soo update gareyso waxa uu ku sheegayaa update QuickBook exchange data with QuickBook financial software ka inuu ku socdo. haddaba qaybta send sales receipt ka iyo qaybta ku update gareysmata waa qaybta sales receipt sentiga ayaa hal update ka dhacay. haddaba update kaasi dhacay waa inuu boqolkii si toos ah uga go'a oo halkan aad ku aragtaa 101. update kasta wuxuu financialka ayuu la shaqeynayaa haddii xagga point of sale transaction ka soo dhacay. casharkeenna waa cashar ka kooban qaabka point update ka marka xagga aad ka samaysay iib ama account soo geliso ama qof lacag alaab ka soo amaatay geliso update ka hamoogaan si ay kugu update gareysmato qaybta markaasi financialka. والسلام عليكم ورحمة الله.